بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وحسوسنتي سيدي أنا وقف إذا سنهين بشان بركة سنة رمضان ولا ليال وحنصوت الماني فضلك بشان رمضان فضلك صومك وحنكلو صوت الماني سيدي أي مهم وتهينا كفا إذا سنه إنه fulinayna amarka ilaahay subxaanahu watacaala uuna amray oo waajibka ah oo inaan maalinta yani bisha ramadaan aan soonno. waxaa kaloo iyadana la sunneeyey ama aad iyo aadna loogu booriyey si aan bishaas uga faa'iidaysanno in habeenadeedii aan ku noolayno cibaado aan ku noolayno oo salaada aan tukanno oo qur'aanka ilaahay subxaanahu watacaala aan dhagaysanno inagoo raadinayna dembi dhaaf ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisii ah iyo inagoo raadinayna inaan la kulanno habeenka khayrka badan ee laylatulqadriga la yidhaahdo ee ka fadli badan kun bilood oo u dhiganta amaba ka badan saddex iyo 80 sano iyo 4 bilood. yani acmaasha aad la imaan lahayd ama camalkii aad qaban lahayd ayaa laga yaabaa inuu ku xasilo oo aad ka helaysaa habeenkaas. marka si aad habeenkaa u heshid waxaa yani laynaga rabaa inaan habeen walba oo habeenada bisha ramadaan ah aan runtii yani aan cibaadada ku noolayno oo masaajid aan soo xaadirno oo salaada aan wax ka tukanno oo qur'aanka ilaahay subxaanahu watacaala aan dhagaysanno. nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiid fi saxiixayn ku jira wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min dhanbih. qofkii bisha ramadaan u istaagay cibaado habeenkeedii rumayn ilaahay subxaanahu watacaala uu rumaysan yahay iyo ajar uu ka rajaynayo rabbi subxaanahu watacaala dartood u istaaga, ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisii hore waa u dhaafaa. xadiidkii horena wuxuu ahaa qofkii sooma maalinta ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dhanbih. marka dembigaa lagu dhaafaa oo yani waxa weeyaan raxmaddii ilaahay ba subxaanahu watacaala ku soo degta qofkaasi daacada ilaahay subxaanahu watacaala ku jira. sidaa darteed ayaa aad iyo aad muhiim ay u tahay inaan habeenadaasi aanan dayacin. dadka badankooda waqtigooda waxay ku dayacaan hurdo ama yani haasaawe aan macno lahayn, tv la fiirsado iyo telefoonno lagu mashquulo iyo waxyaabaha noocaas sheekooyin bilaa macno ah iyo marka yani bishan waa inaad ku talagashaa inayna dhammaanin ilaa adigoo ka faa'iidaystay mooyaane oo si fiican yani uga faa'iidaystay soomidda maalinteeda iyo cibaadada habeenkeedii aad cibaadaysanayso. tan kale dhagaysiga qur'aanka aad dhagaysanayso oo habeen walbaba kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala lagugu akhrinayo yani runtii waxaan shaki lahayn inuu raad weyn quluubta uu ku yeelanayo, qalbigaagana uu saamayn doono. runtiina maanta dacful iimaanka ama dadka iimaankooda uu daciifay waxa ugu wacan fogaanta ay ka fog yihiin kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala ama ayna akhrinin ama ayna dhagaysanin ama ayna baranin macnihiisa. marka waa fursa yani iimaanka lagu xoojiyo way bisha ramadaan in habeenadiina salaada la tukado oo maalintiina la soomo. yani runtii dadaalkaas yani lala yimaado aad iyo aad bay muhiim u tahay wey. marka walaalayaal aan ka faa'iidaysanno yani anagoo ma aragtay rajaynayna dembi dhaaf ilaahay xaggii ah ma aragtay aan ka rajaynayno wey. sidaa darteed ayaa dadkii saalixiinta ahaa ay aad iyo aad u tukan jireen habeenada ramadaan ilaa qaarkood la yidhi yani rakcaad aad iyo aad u fara badan bay tukan jireen. dabcan yani nabiga calayhi salaatu wassalaam ramadaan iyo hayra ramadaanba yani waxaa sugnaatay inuusan ka badinin 11 ragco. laakiin axaadiis kalaa jirto nabiga calayhi salaatu wassalaam uu leeyahay salaatu lleyli mathnaa mathnaa, salaada habeenkii waa labo. marka qofka inta uu doono 2 ragcadood haddana uu tasliim salaadii ka baxo haddana 2 ragcadood uu tukado haddana 2 ragcadood uu tukado haddana 2 ragcadood uu tukado ilaa marka dambe uu kusoo khatimo yani witrigii ragcadii witrigeed u khatimo. marka inta aad tukan karto oo ragcaad ah oo ama gurigaaga ku tukan karto
ama masaajidka si gaar ugu tukan karto ama jamaacada aad la tukan karto salaada yani runtii aad iyo aad bay muhiim u tahay oo qiyaamka habeenkii bisha ramadaan la istaago waxyaabaha dunuubta lagu dhaafo oo dembigaaga hore lagu dhaafo ayaa yani ka mid tahay siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inoo tilmaamayo sidaa darteed yaynan dhayal nagu dhaafin xasaawe iyo hurdo yaynan nagu dhaafin wajazaakum allahu khayran waxaan ilaahay subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo oo ina waafajiyo ka faa'iidaysiga habeenada bisha ramadaan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh